ku soo dhawow channelkayga. haddii channelkayga aad ku cusub tahay oo markii kuugu horreysay ee soo booqatay ay channelkayga tahay subscribe taabo. haddii aad wax isku falayso weeye oo soo booqatay channelkayga subscribe ii taabo, like tanay taabo, waxaasi waa bilaash. haddaba su'aalo badan baa dadku soo weydiiyaan whatsappka layga soo garaaca, waxa laygu raahdaa walaalow seed Mareykan ku tagtay. haddaba haddii aad rabto barnaamijka Mareykanka aan ku soo galay iyo sidaan u imiday, haddii aad rabto ii fadhiiso anaa kaa dhaadhicinaya. waa su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo weeyaan. waxaana laygu soo weydiiyaa barta TikTokta ayuu qofku arkaa fiidiyoyadayda, dib u raaca. markuu dib u raaco kadib wuxuu idhaahdaa wallaahi ninkan Yurub waa ku noolaa, haddana Mareykan buu ku nool yahay, niyahow sideen ula xidhiidhaa. kadibna bartaasuu iga soo lambarkayga Facebook ka soo helaa, xaggaasuu iga soo galaa. haddaba aanan iga dhaadhicinaya. dadka qaarkood waxay moodaan in aan sifo kale ku yimiday oon muxuu ahaa soo taariibay oon taariib ku soo galay Mareykanka. taariib Mareykan kuma soo gelin. haddaba ifahan, Mareykan taariib kuma soo gelin. waxaan ku soo galay sifo sharciyaan ku soo galay. dadka majority su'aalaha ugu badan ee weydiiyaa waxa weeyaan Yurub baan hadda ku noolahay, sharci baan haystaa, Mareykan ma iman karaa? laba way baad ku iman kartaa. labada way aad ku iman kartaa waxa weeyaan haddii aad sharci weyn haysato waad soo gali kartaa. haddii aad sharci weyn haysan oo sharci yar haysato, hal mid baa kuu furan. halka mid ee kuu furan waxa weeyaan in aad qof fiisa ku siiyaa kadibna saasaad ku soo gali kartaa. labada way baa kuu furan. haddaba aniga nila hadlayaa sideen ku soo galay, seen ku yimid, sharci weyn kuma lahan Yurub, seen ku soo galay. haddaba saan ku soo galay anaa nii sheegay. 2008 bishii 7 22keygii waa maalin aan aad u xasuusto weeyaan. 9 in the morning ayaan jasiiradda Malta la yiraahdo ku xidhay. aroor bay ahayd. Maltaan soo galay. kadib muddo ilaa 8 bilood ah ayaa waxa la isku xareeyaa jasiiradda. qofku markuu soo galo meel camp la yiraahdo iska jeela ayaa qofka lagu xareeyaa. 8 bilood ayaan meesha jeelka ahayd ku jirnay anagii asxaabtii aan wada soconay ee waqtiga doonta aan wada saarnayn. kadibna sidii ayaan ugu jirnay xabsiga. waa qof kasta oo jasiiradda Malta ku soo xidhaa waa in uu xabsiga soo arka. waayo qofka waxa laga qaadayaa interview wax la yiraahdo oo Soomaalinimo inuu wuxuu sheegtay ama Eritrean ahaado ama Soomaali ahaado ama wuxuu doona ahaado, wuxuu yahay ayuunbaa waxa weeyaan la xaqiijinayaa. haddaba intii anaga la xaqiijinayay muddo 8 bilood ay nagu gaadhay, waana la soo xaqiijiyay. kadibna qof walba interviewgiisii markuu ku baaso ee Soomaali inuu yahay ay cadaato waa laga soo furaa jeelka. kadib magaaladiisu gala, sharci buu saa ku qaadanaya. haddaba jasiiradda Malta Soomaalida ku nool majority waxay sameeyaan qof waliba muu rabin inuu meesha soo galo. hamigiisu wuxuu ahaa inuu Sweden tago ama Denmark tago ama Norway tago ama meelaha waaweyn ee Yurubta inuu galay ahayd mowqifkiisu. laakiin meeshaasay ku soo xidhi doonto. kadib Soomaalidu sharciga markii ka qaato ay baasaboorka soo saartaan way ka duulaan, nin waliba meeshuu rabay ayuu tagaa. haddaba qofka Malta markuu soo galo faraa laga qaada. farahaasi haddii hadhow toole aad Malta ka baxdo oo Denmark tagto ama aad Norway tagto ama Sweden aad tagto, farahaasaa laga qaadaya. hadday farahaasi kugu soo baxaan dib ayaa Malta lagugu soo celinaya. haddaba aniga nasiibkaygii dadku isku nasiib maaha, isku maalinna meydhan, nin waliba maalin buu dhashay. haddaba dad badan oo Malta soo galay oo faraha laga waayay oo wadannada kale Yurubta sharci ka qaatay way jiraan. aniga sharciga aan Malta ka qaatay in Yurub ku galay farihii baa igu soo baxay. farihii markay igu soo baxeen in Malta dib laygu soo celiyo ayaa waxa weeyaan ay noqotay. waqtiga haddaba Malta waxaa jiray process Mareykanka ah oo furnaa oo qaxootiga Malta u furnaa ayaa jiray. jasiirad weeyaan Malta.
qaxootiga aad badda uga soo galaya iyo dadkii awal ku noolaa Malta ee Maltiiska ahaa wax dee jasiiraddu maadaama ay yar tahay qaxootiguna aad u soo galayo meel waxay noqotay in dadkan qaxootiga soo galaya laga sii qaado. haddaba Yurub dadka qaar bay qaadanaysay qaarna Maraykan bay soo qaadanayeen waa la kala qaybiyay dadka qofkii family haysta ama nasiib ku raaciyo Yurub buu galay oo Yurub baa qaadanaysay qofkii kale ee bila family iyo waxaasna Maraykan baa soo qaadanayay. haddaba anigu processkii Maraykankii ayaa isoo qaatay waan galay processka form baan buuxsaday formkii markaan buuxsaday mobile baan haystay mobilekaagana waad ku qoraysaa si hadhow toole meeshii ku soo baxda lagugu sheego lagu soo waco mar walba mobilekaaga lagala soo xiriiriyaad ku qoraysaa formkii baan waraaqadii ku qoray kadibna waan xareystay waa ii soo baxay sidii baa laygu soo wacay u diyaargalow baa laygu yidhi waqtigaa ayaa interview Maraykan laga qaadaya waqtigaas soo diyaargalow. marka qofku markuu Maraykanka uu interviewgiisa bilaabayo 3 interview baa laga qaadaa 3da interview waxa weeyaan haddii aad ku guulaysato natiijada wax lagu sheegaya ka saddexaad baa lagu sheegaya oo waad ku guulaysatay lagu odhanay ama kumaad guulaysan. saddexdii waan ku soo guulaystay qofkii laga shakiyo wax la yiraahdo waa lagu qaabilay iyo laguma qaabilin wax ayaa la siiyaa oo hawshaadan camoo lagu jira wala soo eegaya ayaa la siiyaa kadibna marka qofka inuu cad yahay wixiisu la arko kadib baa laga qaadaa waxa la siiyaa dib dejin oo waa qaxootinimo rasmi ah loo ogolaaday. anigu marka processkii sidii uu ku guulaystay waqti ayay ku qaadatay oo waxa weeyaan aan sugayay sidii ayaan Malta markii dambe uga soo baxay oo lay soo qaatay oo dalka Maraykanka dibadjin layga siiyay. dadka qaarkood waxay moodayaan in aan tahriib ku soo galay laakiin tahriib kuma soo galin wadanka ama jasiiradda Malta ayaa laga soo qaaday qaxootigaasana ka abalgaraystay. marka Soomaali badan siin walaal ku soo gali karnaa igu waalay igu wareeriyay waxaan leeyahay haddii aad rabto in aad Maraykan soo gasho ama Maraykan ay naftu ay ka rabto inaad soo gasho halka way ayaan ku soo galay qofkii kalena wuxuu samayn karaa baasaboor weyn hadduu haysto iman karaa qofkii kale ee baasaboor qaxooti oo yar haystana qof baa fiisa siin kara saasuu ku soo gali karaa. waxba yaanan hadal inagu daalin waxyaalaha kale ee muxuu ahaa u baahan tahaan aad u baahatiin waad ila soo xiriiri kartaan waana niga shaafinayaa oo waan nii sheegayaa mar walbana ha ilaawina in aad subscribe-ka taabataan waxa weeyaan lacag ma waa bilaash anigana waxbaad iga faa'iideysaa.